maanta ayaa magaalada Boorama waxa gilgilay taageerayaasha urur siyaasadeedka shaqaalaha iyo dhalinyarada ee rays kuwaasi oo sameeyay ballanbaxaad ballaadhan. ayaa waxa kale oo ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee urur siyaasadeedka rays maamulka gobolka iyo kan degmada ee urur siyaasadeedka rays iyo xildhibaanada 22 ah ee ururkaasi uga sharaxan degmada Boorama. gudoomiyaha gobolka Awdal ee urur siyaasadeedka rays oo halkaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay taageerayaasha ururka waxaana uu tilmaamay inay tani astaan u tahay baaxadda taageero ee reer Boorama u hayaan urur siyaasadeedka rays. qaar ka mid ah musharaxiinta urur siyaasadeedka rays oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo bandhigay barnaamijkooda waxqabada. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee urur siyaasadeedka rays Saleebaan Qalombi oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa Abdullah